weligaa mishaar ku shaqeyn qodobkaaga qor walaal weligaa mishaar ku shaqeyn waxaad ku shaqeysaa qiyamkaaga akhlaaqdaada ku shaqee edabtaada iyo karaankaaga ku shaqee xeerasha looma shaqeeyo xeerasha u shaqeyn waxaad u shaqeysaa qiyamkaaga nacam akhlaaqiyaadka sare ee insaanka u shaqee maxaa kamid ah tusaale haddii 7 biira soo gal lagu yiri shaqada 6 iska soo gal 6 inaad soo gasho abaal kagama sugaysid managerkaaga iyo mulkiilaha shirkadaada waxaad abaal kaga sugaysaa naftaada because naftaada sharfaysaa waxa la yiraahdaa dadna qaar xeerasha u shaqeeyaan dadna xeerasha laftigooga u shaqeeya dad aduu iyadoo 7 laymaneed 6 timaado aduu xeerku ku shaqeynaya because xeerkaad ka horeysaa marka haddii xeerashaad hor socoto adiga xeerasha ku shaqeynaya deganaansho badan baa dareemi farxad badan baa dareemi waxaad qabanaysaa inaad raalli ku tahay baa dareemi meesha yar joogtana xidig baad ka noqonay dadka kale ku daydaan mushkiladeena waxa weeyaan marka qof walba wuxuu iska eegayaa saacada yar buu eegayaa mishaarka yar buu eegayaa 30ka bisha waa maalmaha ugu jeceshahay dunida 10ka bishana waa maalmaha ugu necebtahay dunida because bargo baa tahay marka eeg nolosheeniba waxaad moodaa inay si ila meerayso u tahay oo marna waxaad riinaysaa mishaarkii marna waxaad ka ordaysaa waqtigii so taa goor ma ka bixi karnaa markaan ka bixi karnaa wax weeyaan nolosha intaan jooginaa ma badno walaal haddaan ugu badano 6 ma jooginaa marka 6 ka soo doonada waad koraysaa waxbaad baranaysaa oo dugsi baa ku jirtaa oo waad rafaadaysaa amiin 5 wixii ka dambeeyay shaqo diyaar u tahay Soomaa okay so qayb way ka tagto waa korinkii qaybtan kale shaqada ha ka dhigan qayb ka tagtay iyaduna oo walwal kaaga tagto oo nacayb waxaad qabanaysaa aanad necbayn aanad jeclayn aanad niyad u hayn aas khasbayso dadkeena badankiisu waxay wax u qabtaan qushi bilka yaga bixini waa ku maararoobayaa waan ku sug ma wax kale oo qabtaad haysa qushi baa nolosheeni oo dhan ay ku dhamaatay waxaad arkay nin weyn oo 60 jir oo wali qushi ku shaqeynaya qushiya marka morally waa daalaysaa niyadaadii baa daalaysaa maskaxdaadii baa daalaysaa jidhkaagii baa daalaya naftaadii baa daalaysaa adoo isnicib baad dhimanaysaa hadhow waxaad qabanaysaa markaa dib u eegtana aan ku faraxsanayn sidaa u dhiman hadda fursad baa istaa wax walba ku bedeli karto fursadaas waxa weeyaan ama waxaad jeceshahay qabo ama waxaad hadda qabanaysaa jeclow dadka ugu farxadda badan la dunidu ma dadka waqtiga badan haystaya shaqooyin yar oo fudud haysta lacagtu si fudud ay ku soo gasho maaha farxadii deganaanshaha iyo wanaag iyo waxa uu qofku qabanayo inuu jeclaado dadku la shaqeynayo jeclaado meeshuu joogo uu ka shaqeynayo inuu jeclaado waxaas ma keenaan badnaan dhaqan shaqo inaan yeelanaa waa muhiim caafimaadkaaga muhiim u tahay noloshaada muhiim u tahay waxay muhiim u tahay ahaanshahaga iyo dadnimadaada muhiim u tahay marna waxaad karaameynaysaa meeshaad u shaqeyso marna adiga is karaameyn waxaad leedahay meesha aan u shaqeeyay ka badan waxaan sharfayaa nafteydana waxaan ku sharfayaa inaanay arag baxeer ay aragta xeerka wax ka shisheeya waxa la iga rabaa 100 200 baa bixinaya waxa la iga rabaa 7 6 imanaya waxa la iga rabaa 3 saac inaan shaqeeyo saacad baan ku daraya I'm always going beyond mar walba talaaban ka sii horeynaya dadkaas qiimay oo adduunyada jooga dadkaas markaa dadka tirsama ee adduunyada isbedelka ku keenay maanta ee dadka kalena saameynaya dadka kalena ay ku dayrayaan marka qodobkaasi waxa weeyaan dhaqan shaqo inaan yeelanaa waa muhiim marna waxaad karaameynaysaa meeshaad u shaqeyso marna adiga is karaameyn waxaad leedahay meesha aan u shaqeeyay ka badan waxaan sharfayaa nafteydana waxaan ku sharfayaa inaanay arag baxeer ay aragta xeerka wax ka shisheeya waxa la iga rabaa 100 200 baa bixinaya waxa la iga rabaa 7 6 imanaya waxa la iga rabaa 3 saac inaan shaqeeyo saacad baan ku daraya I'm always going beyond mar walba talaaban ka sii horeynaya dadkaas qiimay oo adduunyada jooga dadkaas markaa dadka tirsama ee adduunyada isbedelka ku keenay maanta ee dadka kalena saameynaya dadka kalena ay ku dayrayaan marka qodobkaasi waxa weeyaan dhaqan shaqo inaan yeelanaa waa muhiim